بسم الله الرحمن الرحيم walaalka Cabdifataax booska waa ka gudoobay aad buu u mahadsan yahay guriga dhamaantiina saaqatay iyo kala badhba aad buu mahadsan yahay Cabdifataax Agayare sax walaal tusoo dhaw walaal isku leenahay aad buu mahadsan dhaw walaal marlay mastaxad waa booskii Cabdifataax Maxamed Axmed Agayare sax oo ugu deeqay walaalkii halgama Cabdiyare Shukri Galax oo runtii aan arkaynay baraha bulshada iyo sidii dadka Soomaaliyeed uga soo dhaweeyeen marka qaybtii ugu muhiimsanayd Cabdifataax baa maartay qaatay Cabdifataax kaalinta uu sameeyay iyo mas'uuliyadda uu saaray iyo xilka weyn uu gutay waan ugu hambalyeynaa waan u ducaynaynaa runtii geesinimo sameeyay booskan meesha ku yaala waad arkaysaan wuxuu kamid yahay boosaska ugu qaalisan magaalada marka inuu wixii ugu qaalisanaa wax kamid ah adduunka ugu hibeeyo walaalkii isagoo laga yaabo inuusan aqoon hor u lahayn wax gaar ah oo aan ahayn Soomaalinimo iyo deegaanimo ayna wadaagin inuu dantaa guud intuu eego uu hayeeyo runtii waxay tahay sharaf walaalkeen Cabdifataax Maxamed Axmed Agayare oo ku magac dheer Cabdifataax Shaaba oo ahaa halgamaa kamid ah dhalinyaradii isbedelka deegaanka ka dhacay uu istaagay inay dawladii xukuumadii tan ka horeysay macaangaga ahayd la dagaalamaan oo maxaan raahday qayb libaax la ka soo qaatay isbedelkii dhacay in maantana isaguna soo ahaa sargaal sare oo kamid ah saraakiisha ciidanka booliska qaybta armaabtanaaga haddana si uu u dhiirigeliyo ciidanka dhalinyaradana ugu dhiirigeliyo inay ciidanimadu sharaf tahay waxa maanta uu gudoonsiiyay walaalkeen Cabdiyare oo ahaa halyeygii maxaan raahday inantu calmatay hawshiisa hadda lagu hawlan yahay marka waxaan goobjoog u ahayn dhulkii ugu qaalisanaa jigjiga marka la yiraahdo inuu bixiyay qiimo ahaan dhulkan halkii boos 2 milyan iyo ka badan buu maraya dhulkan maanta kala gudoonsiinay uu gudoonsiyay walaalkeen waxa weeyaan 400 oo kaare oo qiimaheedu 2 milyan oo bir uu dhan yahay marka sargaalnimadii iyo halyeynimadii iyo nafhuridii ciidankeenu ay sameeyeen tani waxay u tahay dhiirigelin bay u tahay in bulshadeenu ay inta in leeg ciidankeena ay u horayaan oo dhul qiimaha la ay siinayaan